ee Somaliland ka jira wasiiradii ugu badnaa ee ka qayb galay barnaamijka diiwaangelinta gobolka ka socota ayaa tagay gobolka Togdheer halka madaxweyne ku-xigeenka Axmed Yuusuf Yaasiin uu ilaa heerartuu soo maray gobolkaasi geesta kale waxa barbar socotay socdaalo ay gudoomiyaasha xisbiyada iyo xubno sarsare ay ku soo mareen jiidaha kala duwan ee gobolkaasi taas oo aad iyo aad si ka duwan goboladii kale saddexda ahaa ay ku bilaabantay bilowgii maalintii ugu horeysay xawli ka duwan kuwii hore oo oran karno magaalada gudaheeda oo markaa ku sugnayn in average ama iscelcelinta ilaa 250 ilaa 300 ilaa 300 goob kasta laga diiwaangeliyay taasoo saddexdii gobol oo hore ka dhicin taana waxa sababa abaabulka ay sameeyeen reer Togdheer oo ah dadweynaha waxgaradka hoggaan dhaqameedka maamulka dhammaantood waxay u diyaar garoobeen oo ka faa'iideysanay saddexdii gobol oo hore inay sameeyeen abaabul heer sare ah oo firihiisii ay ku bilaabmeen inay goob kasta oo magaalada gudaheeda oo 46 goobood magaalada gudaheeda inay goob kasta ay geliyaan lighting generator-adina ay u noqdaan kayd oo generator-iskaasi ay ugu tala galeen goobaha magaalada ka baxsan maadaama 24 saacadood uu ka shidayay magaalada inay gurmad ahaan iyo taakuleen ahaan ay ku xoojiyaan goobaha magaalada ka baxsan taasina waxa weeyaan abaabul heer sare ah oo aan gobolada kale ka dhicin taana waan ku bogaadinaynaa waxgaradka hoggaan dhaqameedka iyo maamulka iyo dhammaan intii ka hawgashay maanta waxaan joognaa waa Togdheer oo ah caasimada labada wadanka oo furihii gobolada bari dabcan waan soo marnay gobolka intiisa badan maanta soo marnay waxaad moodaa waraaqihii inay ay yihiin gaas sababta ma garanaysaa taasoo si dambe xalay baxay ama saaka baxay loo diray commissionka oo dabcan laba qaybood isu qaybiyeen oo ah inay xoojiyaan ama reinforcement waraaqihii hore ama qalabkii hore waxaan filayaa inay guul ku dhamaanayso guul iyo gobonnimo waxaas mahad weyn u celinaya waa shacabka weeye Soomaaliland arrinkanu waa arrin ka baaxad balaaran buu ahaa dawlad iyo daqibxyalba waa arrin ka balaaran oo aan qaban karin ba hadii aan shacabku aan gurman laakiinse oday caaqil suldaan aqooyahan dhammaan iyo xukuumadii iyo qarankiiba waa heegan oo arrinka baa lagu jira ilaa ninkii reer miyiga uu arrin iska xisaaray taasoo baleedana waxaan u jeedinayaa waa shacabka Soomaaliland oo la'aantood hadii arrinkan aan igu qaban aan laba qaban karnaa sababaha keenay in lagu loolamo diiwaangelinta ayaa lagu macneeyay maadaama musharaxiintu ay ka heli karaan codad badan gobolka inay taasi keentay orodka badan ee tartamayaasha iyadoon wali la gaadhin xilligii doorashada dadka xilligan isdiiwaangeliyay ciidinama taqaano cidda ay hadhow codkooda siinayaan hase yeeshee waxaa dadaalka loogu jiraa kasbashada codbixiyaal badan deganaanshaha goobaha la iska diiwaangeliyay ayaa si aada u sarreysay waxaase wariyahayaga gobolka Togdheer Axmed Ismaaciil Muuse uu soo sheegay in deegaanka la yiraahdo Riyo Xidho oo ku taala xuduudka Soomaaliland la leedahay dalka Itoobiya in shaqaaqa ka dhacday habeenkii xalay halkaasi oo hal qof uu ku dhintay saddex kalena ay ku dhaawacmeen falkaasi ayaa la sheegay inay geysteen debley aan haybtooda la garanayn kuwaasoo goob makhaayada rasaas ku furay waxaana xoogaha ka imanaya halkaasi ay sheegeen in arrintani ku saleedahay aana qabiil xubnihii shaqaalaha guddiga doorashooyinka ee diiwaangelinta ka waday halkaasi ayaa cabsi awgeed joojiyay shaqadii geesta kale gobolka Togdheer waxaa jira goobo aanay labadii maalmood ee u dambeeyay ka shaqayn qalabkii loogu talagalay taasoo loo nisbeynayo qalabka kombiyuutarada oo ah kuwii